gantaalka Fatah-2 ayaa markii ugu horeysay la riday. Iiraan waxa ay wadaa duqeymadii sidoo kale bartilmaameedka wadamo ku yaala khaliijka Carabta, kuwaasi oo caawa intooda badan ay ololayaan islamarkaana diyaaradaha dagaalka ee Iiraan ay dul heehaabayaan iyadoona sidoo kale ay barbar socdaan gantaalada ridada dheer iyo sidoo kale kuwa balaastikada. Iiraan markaan waxay u soo jeestay inay u aarguddo hogaamiyaashii Israa'iil iyo sidoo kale Maraykanka ay sida wadajirka duqeymaha ugu dileen kuwaas oo ka dhacay dalka Iiraan. Wadahadallo ayuu doonayaa Maraykanka inuu la galo Iiraan, halka Iiraan halkeeda ay ka soo horjeedo wadahadalkaasi islamarkaana xilligan ay diyaar u tahay inay dagaalka ay sii laba jibaarto islamarkaana bariga dhexe ee olol uu ka dhaco qabiil u dambeeyey caawa laga soo gaarayaa bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada khaliijka Carabta ayaa halkan ugu soo gudbin doona. Halkaad naga daawanaysana waa janalkeena Rumaal Media. Alaab halkan waxay ugu soo gudbaa xogii u dambeeyey dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ku saabsan badan. Haddii ay taabatii ugu horreysay ku soo gaaro muuqaalkeenana fadlan subscribe ugu dhig kuleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Haddii aad subscribe ku tahayna muuqaalka noo share garay like noo saar si uu gaaro asxaab badan. Aragtidaaduna waa inoo muhiim in ugu reeb xabdibaalada waad ku maadsantahay daawashadaada aynu ku bilaabno. Dowladda Iiraan ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay askartii ay ku dishay Maraykanka iyadoona tiradooda ay ku sheegtay ilaa 500 oo askar kuwaasoo sheegtay inay ka sugnaayeen saldhigyo Maraykanka uu ku leeyahay bariga dhexe islamarkaana ay ku dhinteen weerar ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka kuwooda aan duuliyaha lahayn. Iiraan ayaa waxay sheegtay in weerarkeeda ay marka ka dambeysa ay sii laba jibaari doonto islamarkaana si gaar ah ay u bartilmaameedsan doonto saldhigyada Maraykanka ee uu ku leeyahay bariga dhexe iyo sidoo kale guud ahaan wadamada khaliijka Carabta iyadoo horey Iiraan ay u bartilmaameedsatay saldhigyo gaar ee uu Maraykanku ku leeyahay wadamo ka mid ah khaliijka Carabta oo dhulka la dhigay halkaasi oo guulo waaweyn ay ka gaartay Iiraan. Weerar gantaalo ah oo Iiraan ay ku qaaday magaalada Israa'iil ee Beit Shemesh ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale iyadoo duqeymaha lagu soo waramayo in la beegtay xarunta ciidanka iyo sidoo kale hubka lagu sameeyo. Warkan waxaa shaaciyey Israa'iil iyadoona aanan xog badan intaasi laga helin iyadoona Iiraan weli aysan faahfaahin ka bixinin duqeymaha ay Iiraan ay la baagsatay khasaaraha dhabta ee ka dhashay inkastoo Iiraan inkastoo aan iraahdee Israa'iil khasaaraheeda dhabta aysan sheegaynin iyo sidoo kale wadamo qaar oo ku yaala khaliijka Carabta. Iiraan ayaa dhanka kale waxa ay saldhigyo ciidamada badda ee Faransiisku ku leeyahay oo Dubai ay la bartilmaameedsatay duqeymo iyo sidoo kale Maraykanka uu ku leeyahay Kuwait oo weli duqeymuhu caawa ay ka socdaan askar badan oo u dhashay dalka Maraykanka halkaasi lagu dilay inkastoo aan tiradooda la cayimin amaba aan si sax ah loo shaacinin maadaama ilaa hadda Iiraan ay wadaan duqeymahooda ee bartilmaameedka islamarkaana ay si aad ah u bartilmaameedsanayaan goobo badan oo muhiim u ah iyadoo sidoo kale dabaqyada dheer ee ku yaala qaar ka mid ah wadamada khaliijka Carabta la arkayay iyaga oo guud ahaanba la baabi'iyey. Dabaqyadaasi waxaa ka mid ahaa kuwa u dhow ee isku taga Imaaraadka Carabta. Dabaqyadaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo ila soo jiidasho leh islamarkaana waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii wadamada khaliijka Carabta iyo sidoo kale bariga dhexe maadaama ay burbur badan uu ku yimid qaar ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee kasoo gelayay wadamadaasi. Waxaa ilaha dhaqaalaha ka mid ah garoomada iyo diyaaradaha iyadoo qaarkood ee la duqeeyey khasaare xoogan soo gaaray halka kuwo kalena ee duulimaadyadii gabayhaaba la joojiyey oo halkaasi waxaa hakad ku yimid dhaqaalo fara badan oo kaga soo xaroon jiray dhanka iyo garoonka diyaaradaha. In ka badan 3,400 oo duulimaad ayaa la joojiyey maanta oo xadda guud ahaan 7 garoon oo diyaaradood oo ku yaala bariga dhexe sida laga soo xigtay duulimaadka Flight Trade 24 garoonka diyaaradaha ee Qatar
Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa ka mid ah kuwa la xiray oo aan sida tooska ah ee aanan u shaqaynaynin xilligan, maadaama laga cabsi qabo in Iiraan ay bartilmaameed ay u noqdaan garoomadaasi diyaaradaha. Cabsi laga qabo Iiraan ayaa loo xiray, iyadoona sidoo kale qaarkood wadamada kale ee Khaliijka Carabta la bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha, kaasi oo ka mid yahay midka isku taga Imaaraadka Carabta ee Abu Dhabi. Abu Dhabi xilligan waxa uu yahay wadanka ee sida gaarka ah ay Iiraan u bartilmaameedsato, isla markaana jab xoogan uu soo gaaray. Inkastoo Iiraan aan iraahday inkastoo Abu Dhabi, Qatar, Kuwait ay ku hanjabayaan in Iiraan ay iska difaaci doonaan, isla markaana diyaaradahoodii ay hawada ay gelin doonaan oo hubka ridada dheer iyo sidoo kale balaastikada ee kaga imaanaya dhanka Iiraanna ay iska difaaci doonaan, inkastoo awood ku filan oo aysan lahayn. Waxaa sidoo kale Iiraan cambaareynaya dalal badan oo ku yaala wadamada Afrika iyo sidoo kale qaaradda Yurub, iyadoona wadamadaas ay ka mid yihiin South Africa, Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya. Inkastoo dhammaantooda aysan carabka aysan ku dhufanin duqeymaha Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay ka fuliyeen wadanka Iiraan, halkaasina ay ku geeriyoodeen saraakiil sarsare iyo hogaankii ugu sarreeyay ee Iiraan, balse dhammaantooda waxa ay ka siman yihiin cambaareynta duqeymaha ay wadamada Khaliijka ay ka geysanaysay Iiraan. Arrintaasi ayayna waxay ku tilmaameen dhammaantooda mid laga xumaado, oo ayna Iiraan loogu baaqay in ay joojiso duqeymaha ay ka wado wadamada Khaliijka Carabta. Inkastoo Iiraan xilligan aysan u muuqanin mid joojinaysa amaba dhigna aanan kala qusinaynin baaqyada kala duwan ee soo baxaya, haddana dhanka kale waxaa jira Iiraan wadamo kale oo taageeraya islamarkaana ka xuna falkii Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka ay kula falkii aan iraahday Israa'iil iyo Mareykanka ay kula kaceen Iiraan, kaasi oo lagu dilay Ayatullahi Cali Khamenei, iyadoona dalalkaasi uu ka mid yahay Ruushka iyo sidoo kale Bakistaan. Bakistaan maanta waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedeen dilka Ayatullahi Cali, iyadoo sidoo kale ay u baroor diiqayeen. Waxaa sidoo kale jira in qunsuliyadda ee Mareykanka dalkaasi Bakistaan ay dad careysan gudaha u galeen, halkaasina ay ku gaarsiiyeen burbur xoogan. Caawa xaaladda bariga dhexe ayaa waxay tahay mid aad u kacsan, iyadoo xalay wadamo ka mid ah bariga dhexe iyo sidoo kale Khaliijka Carabta aanan indho la isku qabanin, ayaa cawadana waxaa laga cabsi qabaa in sidaasoo kale aanan laga seexanin, maadaama cabsi xoogan ay hayso islamarkaana ay ka baqanayaan in Iiraan ay weeraro culus halkaasi ka fulinayso. Inkastoo qeybo ka mid ahba xilligan ay ka socdaan duqeymaha Iiraan, waxaa la sheegay in gudada dheer ay qoteen qaar ka mid ah wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale bariga dhexe, kuwaasi oo gududka hoostiisa ay kaga dhuumanayaan gantaalada laga cabsanayo Iiraan in halkaasi ay ku weerarto. Wixii xoogo ay kusoo kordho ee la xiriira xaaladda bariga dhexe, muuqaalada xiga ayay ugu soo gudbin doonaa. Hadday tahay markii ugu horreysay ugu soo gaaro muuqaalkeenana, fadlan subscribe inoo dhigto maleelkan fursi ay kusoo gaara muuqaalada kala xiga. Haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay, like inoo saar si uu gaaro asxaab badan. Aragtidaadana waa inoo muhiim inay ugu reebto qaybta faallada. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.